بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي ونحسن عن أصحابتي قاليقة and forever living product وارون لعق أيا لقى سمية ولي لعق آد وبضنا لقى سمية بيش هوري عن صودا فين هوري لبعتني يسدح ذي أيا صوق لي سدح بري وحنك شقي لعق سدح $100 بيش كحكت وحن شقي كون يشان $100 بيش هذا أو نقدر ما نساعدنا وحنك شقي $200 سيدا وشقي وين ذالي ها ألعبت ومركه هو وين ألعب كسوق الشركة kadib ayay shaqo ku siinaysaa fadlan hadda diyaar ahayn linkiga aan hoos soo dhigi doono groupka ha soo raacin lacag hadaa haysan oo alaab ku gadatay shirkadan ha soo raacin suma wallahi oo bilaa tallahi waa run wajilaan ku dhaartay laakiin adigoo diyaar ah fadlan soo gal in laga babaxo aad soo gashid groupka waa mamnuuc adigoo diyaar ah soo gal please. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبلاشين بهجة لايف ستايل قوان قول كما دنبيسا رون أهانتي قوان حدا قادت قول أياد قاريسا رون أهانتي دادكا أوجيدد وحي كشقيان كمبنيغا forever living producti وأوجيدان دمانتا وحي قاتين جاق انتا سو لعبكو قران ما شاء الله تبارك الله وحن إذن لايهي مجعشا أدو قريقا جوكت online marketing إناد كشقيسد أما online business رون أهانتي دادكاس وعدين وحي كوتاي forever إنا كشقيان إنا جاك قاتين كمبنيغا وكمبني هانيقيقة والله أو بالله الله وجه الله وأنيقو بهجة لايف ستايل أيا كل أيا لعك قاتي تومات أيا كجرا أنيق حاجة كجرنو لعك وحان شقيني أن إن بعدين مدوني سئنا شقيستد هذي لبكاتا إنا شقيست فضلا قصابير كبرين فوريفا وأوجدان قبل أسكالي ما شاء الله تبارك وحقاتي $4,000 وأوجدان $4,000 أنتي لقى هلا سيدو كلا قف كاس كلا حقاتي $5,000 وقاتي ما شاء الله بالقصة لقادنا يا قف كاس كلا حقاتي $2,000 ما شاء الله أنا بهجة لايف ستايل هان لعكتس كينيا أيان قاتي بيشن كيلو حن قاتي $5,000 رون هانتي هدان بين شيء جاينا إن ما عرفت قربيه جمال إيجا صارن بين وإيجا حاران من يسور تجلس كم برين ألاوه هاين وألاوه سوجدان ألاوه عيلك كنينيا ذا ما عرفت كان إلكها هارها جدودك فينك إسعاتينتا إسعيلنتا كمبري وحو هيا آلاب تيالي أو معرفت هذا قفك كسي يبسطيت حتى تيكول أنا ليقان أو عان أو وحنا قبطو ما فهمتي أصحابتي قالي بين إذي مشي غايو لا بين وحن وأدوني والرافايا لكن وحكم يمسن إن قفك ولا الكهرون الشيكت قف مسلم إن بين الشيكت وحاران أنا عديمه أيان كيني هلك وجد ضدك جاك هيستلمان وجدان كيدسك عيالك أما إن المها عيلة أيا كمدة tan caloosha bixinaysa ayaa kamida C9 ayaa kamida run ahaantii alaabtaas dhan ayuu kambaniga hayaa hadda kow maxaa laga rabaa shuruuda kow waa inaad fahantid shuruuda labaad markaa fahantid kadib waa in isdiiwaangeliso qofka sponsor ku ah ayaa ku diiwaangelinayo kadib waxaa laga rabaa inaad kambaniga ka soo gadatid alaab waa intaas only kambaniga alaabta aad ka soo gadanaysid meel kasta aad joogtid xarun ay ku leeyihiin kambaniga forever living product xarumaha ugu dhawna qofkan xarun meesha ku leeyahay xarumaha ugu dhaw ayaad ka doonan karaa alaabta kambanigan forever living product waxa laga leeyahay dalka Mareykanka ah 40 sano ayuu ku jiraa caalamka ama uu sanad jirsaday 160 wadan ma xarun ayay ku leeyihiin kambaniga forever living product wad google gareyn kartaan maxay leeyihiin website run ahaantii kambaniga forever living product online shuruuda laga rabaa in alaab ka soo gadatid marka alaab ka soo gadatid kadib team aan sameynaysa teamkaaga ayaad bonus ku sii helaysaa marka si dameysana lacagta aad helaysid oo faa'iido qabtid darajo waxaad gaari doontaa xitaa adoo dad diiwaangelin lacag aad ku helaysid caadi ma ahan ma sha Allah tabarakallah walaashin bahja life style waxay ka qaateen daabasho wanaagsan asxaabta waa imaaday meesha kambaniga wajida meesha bangiga imaaday lacagta roo inaad ka qaadin fahanteed waxyar kadib insha Allah waniila soo socodsiina lacagtaan qaadanay forever waxyar kadib lacagtaan ay tusina insha Allah asxaabta qaaliga oo ujeedaan waan soo qaatay waa 3 baritaan ku shaqeeyay ma fahanteen maanta lacagtii ma sha Allah tabarakallah wataay ilaa noo barakay idinkana maartay insha Allah soo dadaala wataay lacagta laga helo forever living product waa sax lacag laga helaa muddo 3 bari aan lacagtaas aan ku shaqeeyay ma fahanteen marka bishan haddana way ii socotaa waan shaqeynaya wali ma fahanteen marka caadi ma aha shirkadan lacag sax ah taalo run waaye ha laga faa'iideysto ma fahanteen cadeemaheeda waa kan oo ku sheegay run ahaantii wallahi billaah oo tallahi wajilaan oo ka hadlay lacagtan forever company iga soo gashay حتى قال لي أنت تروح كل شيء و 3 days only وبيش هرسولة في 3 days هذا بيشن كوني $500 ما شاء الله وحنقولي هاي جوان هتاد قادتي قول آيات بلاودي وحنقولي هاي كمبني قار أظن مليسان ما كمبني وكمبني صح أرنهانتي أو 100% وروحان هوبين لما إمادة يعني لبس سنة ليه قناة يوتيوب ما شاء الله ضدك أوجد دمان dhammaantood waxay noqdeen assistant manager supervisor ay noqdeen manager ay noqdeen ma sha Allah meel fog ay gaareen dadka u jeed waa cadeemo please waxa igu codsi hadda diyaar u tahay shirkadan
hoos waxaan soo dhigi doonaa groupka linkigiisa soo raac waa haddaad diyaar u tahay haddaad diyaar u ahayn oo lifti qaadan doontid please ha soo raacin shirkaddan haddaad diyaar u tahay soo raac waxaa idin leeyahay waxaa idin balan ah groupkaas ayaan maarta si fiican idinku fahansiin doonaa haddaad diyaar tahay soo gal insha allah aadna waan u salaamayaa dadka meesha ku wada jira soo dhawaada waan leeyahay walaaladay walaalka manigan anigu wax badan kuma jiro siduu walaalkeen amba leaderkeen inoo sheegay waxaan bilaabay bishii afraad 29keegii kambanigan waxaa ku jiray muddo 2 bilood oo yara dhadhow anoo hal maalin ku jira maasha Allah waxay suura gashay inaan hal qof diiwaangeliyo amba hal qof kambaniga keeno waxa ay soo dhacday commissionka Cabdiqaniyo waxa bilowday 29kii Abriil marka hal maalin bad ku lahayd bishii Abriil marka bishii May bad ku bilaabantay May bad toos ku bilaabantay May baa walaalay bilaabatay bishaan halka maalin ku jiray walaaleen waxa ay suura gashay in qof kambaniga ku soo daro hal maalin imisa ku samaysay marka dhaqaalin kale bad ku samaysay walaal halka maalin $90 ayaan helay anigana taasi dhiirigelin bay noqotay ما شاء الله bishii shanaad dadaalkaygii waan sii bilaabay wixii markii laga sheekeynayay anigu xaqiiqsaday horaan u socday bishii shanaad ilaa 7 qof aan keenay commissionkaygii wuxuu noqday lacag dhan $612 $612 runtii waxaan filanay baa meesha iga soo baxay Cismaanow oo aanan malaysanayn lacag aanan ka filanayn meesha noloshaydii baa dhismatay farxad baan helay shaqadii habeen iyo maalin waan sii bilaabaa waayo waxaan ku nastaaba ma yaalaan meesha walaalada iyo 8 qaadanaya markaan arkay 600 wax lagu qanco maaha inaan ka sii badiyo waan ku dadaalay bishii lixaad dadaalkaygii waan badiyay dhaqaale intii ka badan ilaa 900 haddaanay ku bagaadhin ayaan sugayaa haddii la yiraahdo ما شاء الله markaatiba ka noqon doonaan insha Allah lacagtay soo dhacda anigu runtii ma malaysan karo laakiin waxaan ku haweynahay intii ay ka badan bay inay tahay ما شاء الله أرتو dadkan aaw meesha lagu soo marti qaaday waa dad aad nasiib badan warbixinta waxay helayaan iyagoo guryahooda jooga walaalayaal kambanigan waa kambani aad u qaaliya inagu dad Soomaaliyeed nahay shaqooyin sa wanaagsan ma jiraan dadkeena Soomaaliyeed 200 300 bay labada galinba ku shaqeeyaan laakiin professor caalamka joogo laba kun qaadanaya ayaa fursadan markay arkeen shaqooyinkooda uga yimid oo forefa malaayiin dollar ka shaqeeya waxaad nasiib u hesheen walaalayaal idinkoo guryihiina jooga inaan warbixin idila wadaagno kambanigan warbixintiisa la digaarsiyo laakiin adduunka waxa ku nool dad inta jaraa'id ka arkeen 24 saacadood tareen u saarnaa rafaadka u maray warbixinta kambaniga aad baad u nasiib badan tihiin runtii waxaan idooda lahaa go'aan guul kama horeyso go'aan u baad u baahan tihiin waxaad ka cabsataan meesha ma yaalaan anigu kambaniga bil baan ku jiray bishii labaad baa ii socota runtii waa shaqo aan ku qanacsanahay shaqo aad ku qanacsan tahay markaad qabanaysaana wax ka farxad badan ma jiraan noloshaydu way isbedeshay wax badan baan kororsaday arday jaamacadeed baan ahay waxa laga yaabaa inaad iga waqti badan tihiin iga dadaal badan tihiin halkan gaadhay meel ka badan aad gaadhi kartaan anigu kambaniga waxa kaga jira supervisor 10 cishaa bishana waxaan rabaa assistant manager inaan gaadho insha Allah idinkana guul baa idin rajaynayaa waana idin soo dhaweynayaa dhamaantiin ما شاء الله ما شاء الله warbixin hameenka dilaysiina runtii isla hameenkii sidii baa go'aan ku gaaray alaabteydii baan dalbaday alaabtii markaan dalbaday runtii waxa kaliyo aan aniga goonida ay waxay ahayd markaan alaabta dalbanayay runtii qofka warbixinta ay siiyay ma aanan aqoon waxa ay siiyay warbixinta walaalkan manager Cismaan oo dalka Faransiiska jooga runtii ma aanan aqoon lambarka uu siiyay uu yiri lacagta ku tuur qof aan aqaana iguma soo xirin qof isku magaalo aan joognana barnaamijkan iguma usa garabsiin alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan ku qanacay warbixintii isla markaana lambar baan ka codsaday lambarkiina waxaan ku tuuro lacagtii anigoo ilaahay tala saarta kuna qancay manager Cismaan markaas anigu de manager iyo leader iyo hogaamiye iyo waxaas ma aanan aqoon adigu aan wiil Soomaaliyeed Faransiiska jooga warbixin fiican siiyay kabanigii oo aan galay soo baaritaan ku soo sameeyay oo ku qancay productyaadkii wixii markaan gudaha u galay page-kii kabaniga iyo wax soo saarkii warshadihii iyo barnaamijyadiisa soo arkay alxamdulillah sidii baan lacagtii ku dirsaday alaabtii waxa la yiri Hargeysa lagaga dalbay Hargeysa la iga dalbay sidii bay runtii alaabtii ay igu soo gaartay muddo kadib waxa soo wacay
xafiis ku yaala magaalada muqdisho qaybta taleex sidaan alaabta kusoo qaatay runtii magacyada alaabta ma aanan kala garanayn dib baa walaalo waxaa la igu xiray alaabta magacyadeeda kala bara iyo sida loo iibiyo iyo barnaamijyadii iga caawiyey khayr allaha siiyo walaalkay Said Cumar walaashay Fardowsa dad noocaasa la igu xiray walaalkay Cismaan oo isaguna soo caawinay ilaahay khayr badan ha siiyo marka horta waxaan ogaaday ganacsiga macnihiisa iyo faa'iidada macnaheeda inuu yahay go'aan runtii markaas waxaan ahaa hooyo xaas baan ahaa wadaadkeygii lama tashan hooyaday lama tashan walaalahay lama tashan already go'aanka waan iska gaaray alxamdulillaah rabbil caalamiin haddaan la tashan lahaana waxaan ogahay ugu yaraanta shuushin lagu furi lahaa laakiin maanta waxaan joogaa waxaan maanta haystaa gacanta ku haystaa wax aan ayagii tusay oo ula noqday oo dhahay waxaan ku biiray kabili leeraa forever wuxuu wax soo saarkaan uu leeyahay alaabtii u horreysay ii timiday inaan xaajigaygii sida diyaardarandada dawadii ilkaha runtii saabuuntii aan gurigaygii ilmahaygii ciyaalkaygii xaajigaygii hooyaday walaalahay aan runtii wax aan ka iibiyey waxaan u hadiyeeyey maasha Allah aan familka horta ka safay kadibna aan kaminiga usoo bandhigay kadibna sidii maaragtay la igu taageero la iga mahad celiyo la iri hore u soco sidaan ganacsiga ku sii balaariyay dhiirigelin aan ehelkii ka helay kubishnaadkii aan u bandhigay dee waad arkayseen shalay oo u dambeysay daraad mar ahayd ma aqaane bonuskayga u dambeeyay waad arkayseen lacag $400 ku dhow anigoo weliba hooyo guri joogta oo maaragtay waad dareemi kartaan dee qofku markuu hooyo yahay oo wax kasta ciyaal iyo ilmaheeguna iska yaryarihiin oo dad maaragtay hayn karo aysan ahayn culays badan halkaa iga haysto runtii walaalayaal guulahaas waaweyn baa gaaray alaabtaydiina sidii baan u dalbadaa geeska kale aan ka gadanayaa halkii tiimkana maasha Allah tabaarakallah maasha Allah layna qaali oo halkaan iga maqlaya ayaa tiimkayga haddaba dad ku soo casmo halkaan ku jira inaan horarkaay halkasii meel kasii sarreysaan u socdaa aduunkana waxaan idin leeyahay hadda bilaaba ganacsiga waxba waqti iyo maxaa la yiri iyo maxay ahayd iyo say ahayd iyo hagee ka timid waxaasoo dhan waqti dhumis waay hadda bilow just bilow la xiriir qofkii ku soo diiwaan galiyay walaal xageen ka bilaabaa bis ashaa kaliya ka codsanaya inaad weydiiso qofkii ku soo sponsorkii ku adiga ku soo maaragtay ku soo sponsor gareey oo kugu soo cusub linkigan aad baan ugu mahadsantihiin dhammaantiin hore u socdo maasha Allah aad baad u mahadsan tahay leader sare oo muddo gaaban gudaheed faa'iidooyinka faraha badan la inoo sheegtay ka sameysay shirkadeena caalamiga ah waxay xoojisay muhiimadda uu leeyahay inaad waqtiga ka faa'iideysato oo time-ka ku xisaabtanto waayo ma ogid inaad ma garanaysaa fursadani bari ka maalin aad san u sii ahaan doonto ani sanad ka hor dadkii business-kan aan u soo bandhigay ilaahay aan u qadarin maanta iyagoo aad iyo aad regret ku jira ayay waxa weeye businesskii wada bilaabayaan marka bari sanadka dambe anagoo sanad ku jirnay maanta guulaha haddii aanu ka sheekaynayno canabo 2 bilood ama 3 bilood ku jirtay haddii guulaha ka sheekaynayso sanadka bacdina maxay ka sheekayn doontaa insha Allah halka loo socdaa waa chairman bonus halka loo socdaa waa Carbalan halka loo socdaa waa dalxiis caalamiya halka loo socdaa waxa weeyaan dream rumooba iyo nolol rumooda weeyi walaashay aad baad maasan tahay jazaakumullahu khayran jazaa time ka qiimaha badan leedna la wadaagtay walaalo